kadib markii dhawaan doorasho ka dhacday magaalada Baydhabo ee gobolka Baay xilka madaxtinimo saddexda gobol uu ku guuleystay Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa waxa magaalada Baydhabo ka dhacaya kulamo gaargaar oo lagu taageerayo Shariif Xasan Sheekh Aadan culmawdiinka Ahlus Sunnah wal Jamaaca ee gobolada Koonfureed oo kulan ku qabtay magaalada Baydhabo ee gobolka Baay ayaa waxa ay ku taageereen hoggaanka maamulka saddexda gobol ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ka uu ku guuleystay Shariif Xasan Sheekh Aadan Sheekh Xasan Cali Hilowle oo ah gudoomiyaha Ahlus Sunnah gobolada Koonfureed iyo waliba qaar ka mid ah culmawdiinka Ahlus Sunnah ayaa ka hadlaya sida ay u garab taagan yihiin maamulka Shariif Xasan Sheekh Aadan iyagoona ugu baaqay Shariif Xasan in dadka uu ku dhaqo shariicada Islaamka isla markaana Ahlus Sunnah sheegtay in ciribtirka shabaab gacan ay ka geysan doonaan ama oo culmawdiinka Ahlus Sunnah wal Jamaaca afjoog hadalo dhamaantiyo iyo midayna afjoog hadalo haddana ma sheegaan dhammaan Ahlus Sunnah wal Jamaaca maanta inay taageertii dawladda federaal dawladda Koonfur Galbeed Soomaali ay madax Shariif Xasan Sheekh Aadan madaxay haddii uu aano culmawdiinka Ahlus Sunnah oo iyo ku shalkooyan gobolada shabeellada hoose Bakool Ibaay ku shalkooy yow dadka inta kulunsan si oo muujiyaan taageerada iyo hayaan maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya انت وهانا كسو كلنا مانتا حدين انا اهل السنة والجماعة صدح قبل كوبان وهانا كسو كلنا إن انت غير الدولة دي جيرة انتوراني كما مضى ولا تسمعوا رب صل على حبيب محمد وعلى آل من هم إنما مثل صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء رب صل على حبيب محمد وعلى آل من هم وعلى الآل من هم الكرماء محدين حسني يونيفرسال TV Baydhabo